dhowaan ayay ahayd markii uu shaashadaha ka soo muuqday madaxweynaha Ruushka oo ku hanjabaya inuu adeegsan doono hub nukliyeer haddii reer galbeedku ay ka waansami waayaan hagardaamooyinka ay ku hayaan dalkiisa isaga oo sheegay inuusan markan kaftamayn. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы безусловно используем это не блеф. halkii mar ee la adeegsaday hubka nukliyeerka ah taariikhda waxay ahayd dagaalkii labaad ee adduunka markii Mareykanku uu laba madax ama laba bam oo nukliyeer ah uu ku dhuftay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki ee dalka Japan. dhacdadaasi ayaa ah dhacdada keli ah ee la adeegsaday hubka nukliyeerka ah taasi oo saameyn badan ku yeelatay labadaasi magaalo iyo waddanka Japanba. haddaba maanta oo laga joogo dagaalkaasi 77 sano halkii shalay la haystay laba madax oo nukliyeer ah oo keliyana ay adduunka yaalaan maanta ku dhowaad 13,000 oo madax oo uu halkii madaxba ugu yaraan 80 jeer ka awood badan yahay madaxyadii loo adeegsaday labadan magaalo. ma isweydiisay saameyn intee la eg reebi karaa dagaal nukliyeer oo qarxa xilligan? haddii aad isweydiisay jawaabteeda waxaad ku ogaan doontaa muuqaalkeennan maanta. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waberi Media. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. marka hore inteenan ka hadlin saameynta uu reebi karo dagaal nukliyeer aynu isla eegno sharaxaad kooban oo ku aadan waxa uu geysan karo madaxa nukliyeerku. haddii aynu galno website-kan oo fikrad guud ka siinaya saameynta madaxyada nukliyeer ee adduunka yaala xilligan, adigoo awood u leh inaad ku tijaabisid magaaladii aad rabtid. aynu tijaabo ahaan u eegno magaalo Soomaaliyeed si aynu fikrad guud uga qaadanno ilaa masaafada uu waxyeelayn karo, maadaama aynu kala garanayno masaafooyinka ay isku jiraan magaalooyinkeenu. aynu marka hore soo qaadanno madaxa nukliyeer ee ugu yar ee ay haystaan Mareykanku, kadibna aynu dulgeyno bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. dhammaan intan aynu u jeedno ee goobaabinta ku jirta waa meelaha uu saameynta ku reebayo hubka nukliyeer. haddii aynu soo dhoweyno waxaynu arki karaynaa inay ka kooban tahay dhowr goobaabinood oo midba ay leedahay midab gaar ah. goobaabinta ugu horeysa ee jaalaha ah wax kasta oo ku jira, haddii uu ahaan lahaa bini'aadam, xayawaan, dhismayaal iyo wax kasta, waxay noqonayaan kuwo uumibaxa oo aan xitaa raadkooda la arkin. diilinta ku xigta ee casaanka ah keliya waxa uumibaxaya bini'aadamka, halka guryaha uu soo gaarayo burbur oo keliya. diilinta saddexaad iyadana dhimashada dadka jooga waxay noqonaysaa ku dhowaad 90%. badanaana dadka guryaha iyo gabaadka ku jira ee ku nool goobaabintan way badbaadayaan, laakiin nasiib darro waxaa kor u kacaysa fursadda ah inay bilayar gudahood u dhintaan kansarka ay ka qaadayaan bamkan awgii. waxaa ku soo hartay diilinta ugu dambaysa. goobaabintan dadka ku nool 15% qiyaas ahaan bil gudaheed ayay u dhimanayaan kansarka ay ka qaadaan shucaaca nukliyeerkan. bamkan ama madaxa nukliyeer ayaa ah madaxa ugu yar ee uu haysto Mareykanku. aynu mar kale eegno madaxa nukliyeer ee ugu weyn ee uu haysto Ruushku. haddii aynu ka tagno Gaalkacyo oo aynu tijaabinno magaalo kale, tusaale ahaan aynu aadno magaalada Jowhar, sida aad ka dheehan kartaan saameynta madaxan ayaa in badan ka weyntii hore, waxayna saameyntiisu dhaafaysaa ilaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo qiyaas ahaan 95 kilomitir u jirta Jowhar. dhammaan dadka ku nool Jowhar, guryaha, gawaadhida iyo wax kasta oo yaala magaaladan ayaa noqonaya kuwo uumibaxa oo uusan wax raad ah ka harin, halka inta u dhaxaysa Jowhar iyo Afgooyana ay 90% dadka ku nool uumibaxayaan haddii aysan helin gabaad. dadka ku nool inta u dhaxaysa Afgooye iyo Muqdisho ayaa iyaguna badankood u dhimanaya kansar. haddii aynu isla madaxan ku eegno dalka Djibouti, waxaad arki karaysaa in Djibouti oo dhan ay in yar mooyaane inta kale uumibaxayso oo aysan wax raad ah ka harayn. dabcan waxani oo dhan waa tusaale kooban oo aynu ku fahmi karno saameynta iyo halista ay leeyihiin madaxyadan nukliyeer oo haddii la isku adeegsado sabab u noqonaya burbur aysan aadamuhu si dhaqso ah uga soo kaban doonin. saameyntan aynu kor ku xusnay ayaa ah mid soo gaaraysa qofka ka agdhow goobta uu bamka nukliyeerka ah ku dhacay,
haddaba qofka ka fog goobtaasi maxay tahay saamaynta uu ku yeelan karo madaxa nukliyar qofka ay u qoran tahay inuu ka badbaado nukliyarkaas laakiin ku sugan isla magaaladii uu nukliyarku ku dhacay waxaa jirkiisa gelaya shucaac aad u badan waxayna xaddiga shucaac ee geli kara jirkiisa ay ku xiran tahay hadba goobta uu ku sugan yahay haddii uu joogo meel aan gabaad lahayn oo bannaan ah waxay u badan tahay 90% inuu u dhimanayo shucaaca tooska ah ee jirkiisa gelaya halka haddii uu ku jiro meel gabaad leh sida gurigiisa ama dhismayaasha ku yaala dhulka hoostiisa ee loogu talagalay in looga gabado nukliyarka ay kor u kacayso fursadda uu ku badbaadi karo dabcan qadarta allana meesha way ku jirtaa haddii ay dhacdo in qofku uusan u dhiman xaddiga shucaac ee jirkiisa gelaya waxay ku keeni kartaa in DNA-diisa ay soo gaaraan dhibaatooyin waaweyn waxaana dhici karta in isbeddello ay ku dhacaan DNA-da qofka waxayna sare u qaadaysaa in qofka uu ku dhaco cudurka kansarku iyadoona sidoo kale waxyeelo u geysanaysaa carruurta uu qofkaasi dhalayo mustaqbalka markii madax nukliyar lagu dhufto meel waxaa meeshaasi ka samaysma god weyn halka ciiddii ku jirtay godkaas samaysmay ay la uumi baxayso qiiqii iyo dabkii ka dhashay qaraxa nukliyarka ciiddaas ay ku dhafan yihiin qiiqa iyo dabka ee u uumi baxday cirka waxay isku beddelaysaa daruur iyada oo ay ku jiraan shucaac aad u sareeya daruurtan samaysantay ayaa muddo yar kadib dib roob ahaan ugu da'aysa waxaana sida caadiga ah daruurtan saamaynaya xawaaraha dabaysha iyadoo ay suuragal tahay in meesha uu nukliyarku ku dhacay meel 100 kiiloomitir ka fog ay daruurtaasi ku da'do laakiin nasiib wanaag saamaynta shucaac ee ka dhasha madaxyada nukliyar ayaa muddo kadib yaraata iyadoo 2 isbuuc gudahood uu ku gaarayo ilaa 100% oo keliya taas ayaana keenta in dawladuhu ay dadkooda u diyaariyaan goobo dhulka hoostiisa ah oo gabaad u noqota haddii uu dhaco weerar nukliyar ah halkaas oo ay ku sugnaanayaan 2 isbuuc ee ugu horeysa marka uu dhaco weerarka nukliyarka ah waxaad sawirataa daawade in dhammaan waxyeelooyinkan aynu ka soo hadalnay ay ka dhalanayaan hal madax oo ah kan ugu yar gantaalada nukliyar ee hadda adduunka yaala gantaalkan ayuu culayskiisu dhan yahay 1 megatan halka gantaalka nukliyar ee ugu weyn ee ilaa hadda la tijaabiyey uu culayskiisu dhan yahay 50 megatan bamkan ayaa waxaa tijaabisay dowladda Ruushka iyadoo ku tijaabisay jasiirad lama degaan ah oo ku taala dalkaas bamkan ayaa 3,333 jeer ka awood badan bamkii lagu dhuftay magaalada Hiroshima dagaalkii labaad ee adduunka haddaba ma laga yaabaa in Ruushka iyo Yurub ay ku dhiiradaan qaadida tallaabo oo mid walba oo ka mid ah og yahay inay noqon doonto tallaabadii ay ku burburi lahaayeen kuna soo ciribtiri lahaayeen jiritaanka dalalkooda dabcan dalna xilligan kuma dhiiran karo inuu adeegsado hubka nukliyar iska daa inuu ku dhiiradee xitaa kuma fikari karo maxaa yeelay in Ruushku uu adeegsado hub nukliyar waxay la micno tahay in Ingiriiska Mareykanka Faransiiska iyo inta kale ee haysataba ay iyaguna dhinacooda u adeegsadaan Ruushka taasi oo ka dhigi doonta labada dhinacba kuwa burbur mooyaane aan waxba ka dheefin wuxuuna hadda dhinac kasta u haystaa hubkan hanjabaad iyo balaaxooftan uu isaga fogeynayo inuu kan kale u soo dhowaado maxaa yeelay haddii ay sahlan tahay inay adeegsadaan hubkan waxa waa hore adeegsan lahaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi